gudoomiyaha komishiga gobolka Togdheer Farxaan Cilmi Caalim oo qayb ka mid ah warfidyeenada kula hadlayay gudaha iskuulka Sheekh Bashiir ee gobolka Togdheer ayaa ka warbixiyay hanaanka ay socota tirinta codadka doorashooyinka Soomaaliland ee ka socda gobolka Togdheer gaar ahaan iskuulka Sheekh Bashiir waxaanu sheegay 12 saac ee soo socda ilaa marka la gaaro maalinta bariya inay ku dhawaaqi doonaan natiijada golaha deegaanka ee degmada Burco isla markaana ay ku xigsiin doonaan golaha wakiilada ee gobolka Togdheer gudoomiyaha ayaa sheegay si habsami ah ugu socota tirinta codadkani waxaana ka mid ah hadaladiisa saaka oo ay bishu tahay labadii bishii lixaad 2021 waxaan joognaa goobtii aan ku tirinay codadka oo ah dugsiga Sheekh Bashiir ee magaalada Burco waxa shalay soo xarooday oo si nabadgelyo leh oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala aan ugu mahad celinayno ku soo xarooday ku soo dhamaaday goobihii cod bixinta ee degmada Burco oo ka koobnaa 390 sanduuq iyo goobihii degmada Buuhoodle oo ka koobnaa 38 sanduuq waxa kale oo ayaguna soo xarooday goobihii degmada Oodweyne oo ka koobnaa ayaguna 84 sanduuq Ilaahay subxaanahu wa ta'aala qalada iyo mahada Ilaahay baa iska leh nabadgelyada iyo wanaaga noogu soo dhameeyay hawshii qaranka ee baaxadda lahayd inta ka bacdi saaka oo aynu joogno goobtii aynu codka ku tirinay waxa bilaabmay tirintii codadka oo saa arkayseenba shaqaalaha ka shaqeynaya iyo xisbiyaduba ay goobjoog ka yihiin oo goob loo tirin doonayo oo dib loo tirinayo si loo hubiyo dhaatadana loo geliyo kadibna marka goob kasta xisbiyada iyo shaqaalaha komishiga ay isla saxaan la soo saarayo marka natiijada goobta soo saxa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka bariyaa inta ka dhimanna inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala noo fududeeyo oo uu noo fududeeyo marka hawsh meel fiican bay maraysaa waxaan rajaynaynaa saacadaha soo socda insha Allah ta'ala in natiijadu ay soo bixi doonto oo marka aanu dhamayno goobaha tirintooda sida degmada oo kale degmada Burco degmada Buuhoodle iyo degmada Oodweyne ay ku dhawaaqi doonaan gudoomiyaasha degmadu musharaxiintii isu bedeshay xildhibaanada ee ku soo baxay golaha deegaanka waxa iyaduna maalin ka dambeyn doonta oo ku xigi doonta marka lagu dhawaaqo golaha deegaanka golaha baarlamaanka oo maalinta ku xigta anigoo gudoomiyaha gobolka Togdheer aan ku dhawaaqi doono ayaa ku xigi doonta Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu noo fududeeyo hawsha qaranka ee xilka weyna Nuux Maxamed Cabdi telefishinka Badcas Burco